faa'iidooyinka ay leedahay dhulka oo dhir lagu oo la dhireeyo ama la cagaariyo land greenation kow dhulka oo dhir lagu beeraa waxay joojisaa xaalufka deegaanka labo waxa cilmi baaris lagu xaqiijiyay in meeliba meesha ay ka dhir badan tahay ay ka roob badan tahay sidaa darteed dhulka oo dhir lagu beeraa waxay sabab u noqonaysaa in abaaraha dalka Soomaaliya ka dhaca ay yaraadaan saddex dhirta cagaarani waa noolaha kaliya oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto kadib marka ay dhirtu isla hesho elays biyo carro nafaqo leh iyo isku dhiska carbon laba oxide noolayaasha kalena waxay cuntadooda ka helaan dhirta ama xayawaan dhirta daaqay haddaba haddii dhulka dhir lagu beero waxaa ka dhalanaya in dadka iyo dunyadiisuba aysan cunto waayin oo ay cunto yaraanta laga baxo saddex dhirtu waxay ka hortagtaa wasakhowga hawada iyo isbeddelka cimilada waayo dhirtu waxay samaysaa habka biochemistry-ga ah ee loo yaqaan photosynthesis taasoo dhirtu ay hawada ka qaadato maaddada carbon laba oxide oo ka mid ah maaddooyinka hawada wasakheeya waxayna dhirtu soo neefsataa oksijiinta muhiimka u ah noolayaasha ilma aragtayga ah dadka iyo xayawaanada intaba haddaba dhir beeristu waxay hawada atmosfeerka ka yaraysaa isku dhiska kiimikaad oo loo yaqaan carbon laba oxide kaasoo hawada wasakheeya kana qayb qaata isbeddelka cimilada shan dhir beeristu waxay ka qayb qaadataa bacaad celinta oo meelaha aan dhirta lahayn bacaad guuraya ayaa waddooyinka jara ama magaalooyin dhan kordega oo aasa lix dhirta cagaarani waxay qurxisaa deegaanka waxay soo jiidataa aragtida dadka iyo dalxiiska sidaa darteed dhulka oo dhir lagu beero dhulka waa in dhir lagu beeraa oo la cagaariyaa toddoba dhirta waxaa laga helaa hoos iyo hadh waxaa laga helaa dugsi waxaa looga dhuuntaa cadowga waxaa laga samaystaa hooy iyo hu waxaa laga samaystaa maacuun dhirtu waxay leedahay faa'iidooyin tiro badan oo aan qoraal iyo meeshaan midna lagu soo koobi karin waxaan haddaba soo jeedinaynaa tala bixin recommendations kow in dadka Soomaaliyeed ay ilaashadaan dhirta dalkooda ku taal labo in la hirgeliyo dhir beeris ka hirgasha dalka Soomaaliya oo dhan lana soo nooleeyo 17 Abriil maalintii dhir beerista Soomaaliya xilli kastana dhir la beero saddex in qofta dhirta xaalufinaya loo aqoonsado qof nolosha noolaha cadow ku ah afar in dastuurka dalka lagu daro shuruuc lagu qaadi karo dadka dhirta iyo deegaanka xaalufiya